basbaasku waxa uu ka mid yahay cuntooyinka dunida aadka looga yaqaan aadkana looga jecel yahay. inkastoo basbaasku ku caan baxay kulayl badan, laakiin waxa ku jira fiitamiino iyo macdano jidhka wax u tara. waxaana ugu horeeya fiitamiin C, fiitamiin B6, fiitamiin K, fiitamiin A iyo macdanta potassiumka. intaana waxaa sii dheer in basbaaska uu xambaarsan yahay walxo daawo ahaan loogu isticmaalo cudurro dhowra. walxahaas qaarkood basbaaska oo keliya ayaa laga helaa, waxaana ugu caansan maadada loo yaqaano capsaicin oo hadda laga sameeyo daawooyin iyadoo la adeegsaday cilmi baarisyo tiro badan. السلام عليكم magacaygu waa Nacayb Tire ku soo dhawaada kanaalka Nafaqa Channel. ugu horeyn su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay waa maxay faa'iidooyinka basbaaska. haddaynu taa ka jawaabno, basbaaska waxa loo adeegsadaa in lagu daaweeyo xanuuno badan. sidaa darteed ugu horeyn basbaasku waa xanuun baabiye, waayo maadada capsaicin ee laga helo basbaaska ayaa waxay xambaarsan tahay awood ay ku yareyn karto xanuunada, gaar ahaan xanuunada neerfaha ka dhasha. waana sababta keentay in maadadan laga sameeyo kareemyo loo adeegsado xanuun baabiye ahaan oo loo yaqaano capsaicin ointment. dhinaca kalena basbaasku waa miisaan ride, waayo basbaasku miisaanka ayuu ridaa. sababtoo ah cilmi baadhis lagu sameeyey basbaaska waxaa lagu ogaaday inuu gubo ama yareeyo baruurta ama xaydha ku jirta jidhka. wuxuu kaloo kordhiyaa isticmaalka tamarta jidhka ku kaydsan, laakiin waxay dhakhaatiirtu ku talinayaan in basbaaska uu waxtar u leeyahay cayilka markii lagu daro tallaabooyin kale oo miisaan ridisa. basbaasku waxa kale oo uu sare u qaadaa caafimaadka wadnaha, waayo basbaaska waxa ku jirta maado kale oo loo yaqaano kaayaan, waxayna maadadaasi hoos u dhigtaa kolestaroolka, waxayna ka hortagtaa xinjiroobista dhiigga. waxay kaloo mishaa guntimaha dhiigga, waxayna hoos u dhigtaa cudurka wadnaqabadka iyo faaliga iyo xinjiroobista xididada sanbabada. geesta kalena basbaasku waxa uu wax weyn ka taraa caburka, waayo basbaaska waxa uu hawamareennada ka nadiifiya duufka iyo xaakada. sidaa daraaddeed dadka xaakada ay ka soo go'i la'dahay marka ay qufacayaan, waxaa lagula talinayaa inay cuntada basbaas ku darsadaan. basbaasku waxa kale oo uu sare u qaadaa difaaca jidhka, maxaa yeelay basbaaska guduudan ama casaanka ah waxa uu u roon yahay xanuunada bakteeriyadu ay keento ee ku dhaca sanbabada sida oofureenka iyo borokiitada. basbaasku waxa kale oo uu ka hortagaa kansarka borostatada ama borostateka, waayo cilmi baadhis dhowaan lasoo daabacay ayaa waxaa lagu sheegay in basbaaska uu yareeyo halista cudurka kansarka ee ku dhaca qanjirhka ragga. dhinaca kalena basbaaska waxa uu wanaagsan yahay dadka qaba sankarowga nooca labaad, waayo waxaa lagula taliyaa in basbaaska ay ku dadaalaan maadaama la arkay inuu firfircooni ku abuuro ganaca si hormoonta insulinta ee yar uu u bato, kadibna sonkorta loo yareeyo. intaa kadib, daawadayaal waxaa laga yaabaa inaad imika isweydiinayso waa maxay khasaaraha basbaasku. haddaynu taa ka jawaabno, basbaasku waxa uu keenaa kuleyl iyo hambab hadduu maqaarka ama indhaha gaadho, sidaa daraaddeed waa in laga ilaaliyaa meelahaas. dhinaca kalena basbaasku waxa uu siyaadiyaa laabjeexa iyo hurka caloosha, waa marka uu qofka ku cusub yahay, laakiin waxaa la arkay markii la joogteeyo inuu nabarada gaas calooleedka inuu daawo u yahay. dhinaca kalena waxaa jirta fikrad ay dad badani aaminsan yihiin oo cilmi ahaan aan lagu arkin markii dhowr cilmi baadhis lagu sameeyey basbaaska, taasoo ah in basbaaska uu babaasiir xidhiidh la leeyahay. laakiin waxaa cilmi baaris ahaan la aaminsan yahay inuu basbaaska iyo babaasiirtu wax xidhiidha aysan ka dhaxayn. ugu dambayntii daawadayaal, basbaasku waa laba nooc ama laba midab, waa akhtar ama casaan, guduud ama cagaar. haddaba waxaa isweydiin mudan, basbaaska keebaa ugu faa'iido badan? haddaynu taa ka jawaabno, basbaaska guduudka ama casaanka ayaa ugu faa'iido badan, waayo wuu ka fiican yahay kan cagaarka ama jaallaha ah. haddaba haddii aad basbaaska daawo ahaan u isticmaalaysid, ku dadaal kan guduudan ama casaanka.